بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan oo aan meel kasta adduunka joogtaan. Magacayga waa Naasir Cabdicayd, waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed, walaalihiis Soomaaliyeed la qaybsada dheefta iyo dhibka. Marka aan barwaaqada ku jirno waxaan la wadaagaa barnaamijyo isugu jira arrimaha diinta, arrimaha qoyska, arrimaha bulshada iyo mararka qaarkood siyaasadda oo aan u badnayn, laakiin kama hadlo siyaasad ku dhisan qabyaalad ee waxaan ka hadlaa siyaasad ku dhisan maslaxadda ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan anigu u fiirinin gobol iyo mataqaanaa magaalo toona. laakiinse arrimahaas oo dhan waxaan gelinay hakad maxaa yeelay waxaa jirta abaar aad iyo aad u daran oo dadkii laysay xoolihiina dhamaysay. waxaan bilownay barnaamijka arrimaha gurmadka. runtii walaalaha Soomaaliyeed aad iyo aad ayay iga farxiyeen ina garab istaageen, waan u mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay ajri iyo xasanaad ha ka siiyo, muraadkooda ha u sahlo, intii xanuunsanna ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunka ka qaado, intii waalidoontood u soo niyeysatana ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiintooda ha u naxariisto, ha u dambi dhaafo. intaa kadib walaalayaal waxaa jirta laba caqabadood oo aad iyo aad u waaweyn oo aan kala kulmay intii aan barnaamijkan ku jiray. caqabada koowaad waxay tahay xawaaladaha walaalayaal waxay naga qaataan khidmada ay naga qaataan. marka lacagaha abaaraha ay dadka ii soo diraan waxay ka qaataan khidmada iyo qof walba gooni uga qaataan. marka aniga aan lacagihii aruuriyo oo isu geeyo oo israada alla ilaahay maanta 4,000 ayay gaartay oo dollar waxaad u diri kartaa meel hebla ayaad u diri kartaa, markaan xawaalada u imaado khidmada ayay ka qaadayaan. waxaan halkan baaqi codsi uga dirayaa mas-uuliyiinta xawaaladaha. waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay idin sharfo, waxaad tihiin walaalo sharaf leh, howl culus ayaa noo haysaan, waxaad nagu caawisaan in aad khidmada naga daysaan oo dadka lacagtan loo dirayo aad si toos ugu geysaan. walaalayaal aniga waxba ka faa'iidi maayo, walaalihii soo dirayna waxba ka faa'iidi maayaan. lacagta khidmada aad naga qaadaysaan waxaanu aaminsannahay inay dad badan wax tarayso. marka waxaan si naxariis leh uga codsanaynaa mas-uuliyiinta xawaaladaha uga codsanaynaa inay khidmada naga dhaafaan. xataa haddii aaba dadka soo diray ka dhaafi weysaan, dadka la yaqaan oo la hubo inay ayaku abaaraha u dirayaan in la yiraahdo war hebel ninkaas waa mas-uul wuxuuna dirayaa lacagihii abaaraha khidmad laan ha lagu diro ayaanu ka codsanaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri xasanaad ha idinka siiyo. caqabada labaad waxay tahay xarakada al-shabaab ama ururka al-shabaab goobaha ay haystaan waxaa lagu leeyahay mucaawino lama gaarsiin karo. waxaanuna ognahay goobaha ay ayaku ka taliyaan ama ay ku badan yihiin inay abaarta ugu ba-an ka jirto. qof walba uu baqayaa wuxuu ku leeyahay anigu wax ma geyn karo ama wax lama geyn karo. haddii wax la geeyana waxaa dadka qaarkood ku leeyihiin waxaa laga yaabaaba in raashinkii dadkii xaqa u lahaa aysan gaarin. waxaan xarakada al-shabaab ka codsanaynaa inay bayaan arrintaa ka soo saarto, inay baaq soo saarto, inay ammaan u ballan qaado dadka cidda waxaan soo gaarsiisa in si ammaana loo siiyo. sidoo kale dadka qaarkood walaalayaal xilli waxaanu ku noolnahay ammaanadii yaraatay, marka dadku waxay jecel yihiin wax walba ay bixiyaan inay maqal iyo muuqaal ku arkaan. laakiin waxaa lagu leeyahay meesha al-shabaab ka taliso camera lama ogola, video lama ogola, haddii lagu qabtana qofkii asagaaba amnigiisa khatar ugu jira. marka waxaan xarakada al-shabaab ka codsanaynaa in ay ummadda Soomaaliyeed u naxariisato. xilli adag ayaa lagu jiraa, waxaa dhimanaya waa hooyo Soomaaliyeed, waxaa dhimanaya waa caruur Soomaaliyeed. walaalayaal xilliga dhibaatada ay jirto waa inaan isgarab istaagnaa, waa inaan qoryaha iska dhignaa, waa inaan maslaxadda guud fiirinaa. walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu dhibaatada naga qaado. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu roobna siiyo. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu colaada naga qaado. waxaan allah subxaanahu wa tacaala uga baryayaa ummadda Soomaaliyeed inuu ka yeelo ummad khayr qabta, inuu mataqaanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ee abaarta ugu bedelo caws iyo naq iyo barwaaqo iyo bashbash. xataa waxaad ogtihiin maalmaha laisma guursado ee guurkii reebaadiyaha waxa weeye roobku markuu doo gabdhihii waxaa lagu yiri mataqaanaa roobka dambe markuu doo walaalayaal roob ma diin 4 sano roob ma diin. marka waxaa ka jirta dhibaato weyn ayaa meesha ka jirta. gabdhihii la balamiyey roobku markuu da-ana xoolihii lagu guursan lahaana waa baaba'een. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu roob fiicanna siiyo. walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala idin naxariisto, iga gaarsiiyo codsigaas walaalaha ay khusayso, gaar ahaan xawaaladaha iyo gaar ahaan al-shabaab. kuley al-shabaab waxaa jira dad la shaqeeye gaarsiiyo waxaad tirahdaan hedhe war dadka u naxa ku dhaha insha allahu tacaala. walaalkii Naasir Cabdicayd idin leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.